village village waa tuulo ama xaafad. voyage voyage ereygan voyage waxaa la yidhaahdaa safar dheer oo dhinaca badda la marayo ayaa waxaa loo yaqaanaa voyage. revenge revenge waa argoosi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. welcome back. soo dhawaada mar kale. cashirka maanta waxa uu ku saabsan yahay how to pronounce G, sida loogu dhawaaqo G. The letter G can sound like G or J, and the letter G, xarafka G, can sound wuxuu u shanqari karaa ama u dhawaaqi karaa like sida G or ama J. xarafkan G af ingiriis ahaan waxa uu leeyahay laba dhawaaq. dhawaaq la yidhaahdo soft sound oo ah shanqadh markaasi jilicsan oo ah J, iyo wuxuu leeyahay hard sound shanqadh markaasi adag oo ah G. if E, I or Y comes after the G, it sounds like J. haddii uu raaco ama uu marka G-da la qoro haddii ay ku xigto E, I or Y, saddexdaas vowel midkood haddii uu ku xigo waxa ay u dhawaaqaysaa ama waxa loogu dhawaaqayaa sida J. tusaale ahaan gem gem waa dhagax qaali ah. waxaa sidoo kale la dhahaa gemstone. sidoo kale ginger ginger waa sanjabiisha. sidoo kale gym meelaha lagu jimicsado. marka saddexdaasi vowel midkood haddii uu raaco J oo kale ayaa loogu dhawaaqayaa. if A, O or U comes after the G, it sounds like G. haddii A ama O ama U ay raacdo waxaa loogu dhawaaqayaa G. tusaale ahaan gum gum xanjo ama sidoo kale ciridkana waa loo yaqaanaa. ama sidoo kale goat goat waa riyaha ama adhicadka. sidoo kale gas waa shidaalka gawaarida lagu shubo ayaa waxaa loo yaqaanaa gas. marka saddexdaas vowelna haddii ay raacaan dhawaqa hard soundiga ayay qaadanaysaa oo G. haddii ay raacaan inta kasoo hadhay oo ah xarfaha consonantiska loo yaqaano dhawaaqeeda inta badan waxa uu noqonayaa G. inta badan ayaan dhahayaa sababtoo ah mararka qaarkood ma noqdo oo waxaa jira exception ama cudurdaar. waxaa la yidhaahdaa there is an exception to every grammar rule. xeer kasta oo naxwaha ama grammarka uu leeyahay waxaad la socda exception ama cudurdaar, oo waxaa jira marar aan xeerkaas la raacin. ma badna laakiin mararka qaarkood wuu jiraa. marka taas waxaa la doonayaa in aad niyadda ku hayso, oo waan arki doonaa xarfo aan sidaasi u shaqaynin. ereyada tusaalaha oo ah soft soundiga oo ereyga G waxaa ka mid ah sida damage damage waa khasaare gaadhsiin. damage manage manage waa maarayn ama maamulis. engine engine waa matoor sida matoorka gaadhiga oo kale. village village waa tuulo ama xaafad. voyage voyage waa safar dheer oo dhinaca badda ah ayaa waxaa loo yaqaanaa voyage. imagine imagine waa malee ama iska qiyaas mala awaal. imagine revenge revenge argoosi. suggest
suggest waa soo jeedin. Haddana waxaan arkaynaa tusaalaha had soundiga oo marka uusan fowladaasi mid ka mid a uusan raacin sida uu u dhawaaqayo. goat waa ri ama aricad. luggage waa boorsooyinka safarka. baggage sidoo kale boorsooyinka safarka baggagena waa loo yaqaanaa. game waa ciyaar. marka erayadan oo dhan jiida waxay u dhawaaqaysaa had sound ayay qaadanaysaa oo dhawaqa adag oo ga. gasp waa afkala qaad. qofka marka war uu la yaabo loo sheego ama wax uu la yaabo uu arko uu afka kala qaado ayaa waxaa la yidhaahdaa gasp. ama marka uu qofka neefsan kari la'yahay uu afka kala qaadayo waa la dhihi karaa gasp. guitar waa gitaar. gate waa ganjeel ama albaabka weyn oo badanaa labada irdood ee furmaya leh ayaa waxaa la yidhaahdaa gate. gaze waa malo ama malayn. exceptionis marka laga reebo waa cudurdaarkii oo xeerkaasi grammarka erayadan kuma jiraan xeerkaas oo gift inkastoo ay raacdo haddana dhawaqa ga ayuu qaadanayaa. marka gift hadiyad. gear waxa weeye waa marshada gaadhiga ayaa waxaa la yidhaahdaa gear. sidoo kale ereygan macno kalena wuu leeyahay oo wuxuu noqdaa qalab. sida haddii aad tidhaahdo waxaan u baahnahay qalabkayga cimilada qabow. I need my cold weather gear. marka labadaas macnaba wuu leeyahay ereygaas. gynecology ereygan waxa weeye barashada arrimaha cudurrada haweenka ku dhaca ayaa waxaa la yidhaahdaa gynecology. marka saddexdan erey midna I baa raacday midna midna y waa markii ay g la rabay inay u dhawaaqdo sida ja oo kale laakiin saddexdan ereyba waxay soo hoosgelayaan exceptionkaas ama cudurdaarkaas mana raacayaan xeerkii grammarka. marka gooni ayaa la doonayaa inaad u barato. cashirkii maanta intaas aynoo joogo. inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe and share the video.